waxba kama bedeli karo farmaajo dantiis oo kaliya u socdo haddaan kuu sheegaane dastuurkan ummadda lagu mafdaadinaa mooye wax qof waliba dantiisa ودلالة كدعوانا هي في الذي سياسة يسوي وحنا مسرع إنه مدحونا محمد عبد الله فرماجة آديات أو كنت واحدة كقبان دونه مدحويني هراء الصومالية محمد عبد الله فرماجة أيام أنت سو جاري مجال مقدشو عاصمة الدلكا فرماجة أي شيء إن سعودة الكيسو أي قصصو arrimaha xal u helida ee cakiran ee dastuurka ee maalmahan ka socoto baarlamaanka haddaba qaar ka mid ah bulshada Muqdisho siday u arkaan dib u soo laabashada madaxweynihii hore ee Soomaaliya horta marka hore aad iyo aad ayaan soo dhaweynaynaa madaxweynaheena wuxuu nagu leeyahay mudnaan iyo sharaf mudana farmaajo wixii dalku soo qabtay dadka dhan waa macnaha wada og yihiin kale macnaha ma fiicna mugta nin walbo in la xakaro qof walbo wanaajiisa iyo wuxuu qabto in la sheego waa taasi waa dastuuri waa horta dastuurka lagu sheegay maaragtay masaakiin wax kuma laha horta dastuurka waxa way madaxda iiga maahane qof kale dan ugu ma jirto ninkan dastuurka uu leeyahay wax baan ka bedelaa dantiis oo kaliya uu ka fiirsanaa maayna anaga oo haddaan shacabnahay masaakiin aan nahay wax dan ugu ma jirto dastuurka lagu sheegay iyaga waa kursiga dheereysan weeyeen waxay isleeyihiin aniga kursiga goormaa ilaa intay gaaraa ilaa iyo muddo qof walba wuxuu rabaa inuu sii joogo meesha kale tookdii hor markuu farmaajo madaxweynaha ahaa xasan wuu ka diidanaa isagan sidaan saan oo kale qof waliba macnaha waxaan waa qor isku dhiib ma fahanti marka qof waliba waxa way dantiis maahane danta ummadda qof u fiirinaysa ma jirto xaqiiq marka laga hadlay waxba kama bedeli karo farmaajo dantiis oo kaliya u socdo haddaan kuu sheegaane dastuurkan ummadda lagu mafdaadinaa mooye wax qof waliba dantiisa dadkan oo madaxda ee dhamaantood haddaan kuu sheegay taariikhdoodan kaaga sheekeena dadka madaxda waxay madax u yihiin mogtahay ilmahooda iyo dadkooda iyo qabiilkooda wadankan wax nidaam dawladnimo hadii lagu imaanaynin one man one vote wadankan nidaam kale ma imaan hadii intay baarlamaan wax dooranayeen ma aragtay dalkan wax macna isbedel lama soo laabashadiisa horta waxaan u arkaa deewaanin muwaadina oo dalkanna madaxweyne ka soo noqday in la soo dhaweeyo oo ku soo laabtana wax dhibi kuma sugna waxaan la soo dhawo waana wax xildhibaan sida fahmi karno oo madaxweyne ka soo markuu xilku ka dhamaado baarlamaanka toos ugu biiraa wax xildhibaan baarlamaanka ku dhex jira marka soo dhawo baa leeyahay wallahi kulla anigu in kastoo aan farmaajo ra'yigiisa iyo siyaasaddiisa aan fahansanayn haddana laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka bedeli karin waayo dastuur furista iyo maxay wax badan oo dastuurka in la furaa dalkay muhiim u tahay oo dan u tahay waxaan aaminsanaa inuu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo aad iyo aad runtii wax badan ka qaban doono baarlamaanku waxa laba kalfadhiyo isku iman doonaan laba waxba laga doodi doonaa in dastuurka la laalo iyo inaan la bedelin waa midda labaad in cod qacantaaga lagu dawladda tan ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha kolba kii ku habboon in la bedelo ayaa arrimahaas farmaajo yimid bulshooyinka Soomaaliyeedna meel kastaba aan ugu bishaareynaya dadka reer Soomaaliland halkan ka joogana waxaan maanta uga faa'iideynayaa inay isdajiyaan carabta iyo intuba inay isdajiyaan dadka kale awdalka yimid horta marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka labaad maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii hore dalkan oo imaan kara mar walba oo imaan kara oo sii bixi kara wuxuu ka mid yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ka mid yahay farmaajo ayaa hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu eedeeyay in uu diiday isku soo dhawaanshaha la doonayay in lagu xalliyo khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya Baaji Cabdullaahi Salaad telefishinka RTN magaalada Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees